بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga waa Naciima, halka aad iga daawaneysaan waa janalkeeni dhaqaaqa aad la xashide maalmo cusub muuqaal cusub waa maalmo maasha Allah isniin ah wiiga awalkiisa inoo tahay laakiin markii muxuu ahaa Afrika meelahaas iyo dhulka islaamka la joogo waxa waaye wiiga bartankiisa maraysa oo sabti ahad ay soo cunaan isniin ay saddex noqonay anagana maanta wiiga bilawgiisa inoo ahayd soo dhawaada dhamaan asxaabteyda walaalaha janalka dhaqaaqa aad la xashide waa arki fariimihiina waa arki maasha Allah sida igu soo duceyseen sida muxuu ahaa isbad gareynaysiin wax la soo koobi kara maaha waa wada mahadsantihiin subxaan Allah ilaahay ay aqbalo adika inta ila jeceshiin in ka badan ilaahay idin siiyo markii aan wanaaga isdhaafsano taasuu ilaahayna nicmooyinka noogu ziyaadina soo dhawaada marka barnaamijkii shalay qabiyo naga noqdo waatii aan dhahay 10 kaan ku ekeena oo haddii aad doonaysiin oo soo dalbataan waa sii wadi doona marka WhatsApp iyo saak waxaan ku soo kacay aad u buuxo iyo qoraaladiini oo commentiga oo YouTube kan waa arkay Naciimo sii wad muhiim waay marka insha Allah wixii aad doonaysiin markaas aad loo daneynayo la xiiseenayo aan isdhahay bulshadina wax badan muxuu ahaa faa'iido ugu jirto waa sii wadaynaa waxaan ku talagalay maanta haddana marka 10 kayanto oo ku xigay 10kaas inaan soo gudbiyo oon idinla wadaago 10 ku xigo markaas intii aan balan qaaday 50 ilaa 70 aan gaarsiinaa idin dhahay Soomaa numberka tirada ii qoran inay intaas gaarsiisan tahaan jeclahay hadaysan ka badneen marka insha Allah waxaan ku talagalay maalin walba 10 inaan ka soo gudbiyo hadii Ilaahay yiraaho hadii barnaamijyo kale ay naga soo dhaxgalaan halkaas magacaan ku wadi doonaa oo baarti 1 baarti 2 yeelanaay sasa ku heli doontiin insha Allah qof walba marka waxa waay markii intaan oo arko wuxuu isdhahaa farxad ma iga maqnayba ilaa ana wax kale oo ziyaado raadinaa ilaa farxadda waa waxa indhahaad ay arkayno ahaystido kugu heerarsan intaas aad aragtidaada ku soo gaabisido aragtid ee farxadda ka dhalataa laakiin waxaas wax ka badanay marka tiraay macnaha su'aasha qofkii lahaa oo ay ka dhalatay waxay ahayd wax iga maqan ma jirto haddana farxad ma haysti Naciim wax ii kordhin karo oo yani farxaddaas ii ziyaadin karo ila soo wadaag saasay ka dhalatay marka waxaan rabaa inaan qof walba noloshiisa siday u qurux badan tahay siday u wanaagsan tahay oo wax lagu farxo ay mudan tahay inaan muxuu ahaa ilaahay deeqad iyo cariiri iyo dhibaato iyo nooma keenin adduunkan oo inaan ku raaxaysano farxad iyo nolol wanaagsan ku noolaa keenin waxyaabaha ku soo maraayana inay noqdaan wala nabluwannakum bi shay'in yani nabluwannakum imtixaan wa macnaha ay wax ku soo mara waa imtixaan laakiin inteeda kale nolosha waa farxad iyo qurux iyo imtixaankaasna hadba sidii loogu kala gudbo ay farxadana kala saameysaa taas marka aan ugu talagal inaan wax badan on haayo oo farxadda aan idinla wadaago si aad marka qof walba oo ugu qanco ugu noqdo gurigiisii oo wax badan oo ka halaabi la xataa uu yiraahdo subhanallah waxaan waaba haystay maxaa oo arki waay nicmooyinka ilaahayaan marka aan yani ma tirin karno oo ilaahay wuxuu yiri wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha nicmooyinka Allah hadaa doontaan inaad tirsaan oo calculate ku sameystaan ma tirin kartaan waa ciidaas yani cid tirin karo nicmooyinka ilaahay ma jirto farxadda marka nicmooyinkaas ay kamid tahay qofku ilaahay siiyo yaa helaa waana la carbin karaa oo qof walba ilaahay farxadda wuu siiyo hadba sidii qof walba yani uu aqbalo accept gareeyo ama dareenkiisa uu ugu connection gareeyo yaa la kala yahay marka 10 kaanaan rabaa inaan indana aan idinla wadaago wixii markaas ka fahantiin insha Allah commentiga hoose ula wadaago qof walba waxa la rabaa marka inuu tirsado 70 oo kale markaan soo gudbiyo oo 80 aan soo gudbiyo konton gurigaadii aad ka dhaxishid maxaa ka maqan waxaan rabaa inaan saas qof walba oo yani si qanaaco leh oo dib isugu laabto intii shalay waan soo ogaanay kooga hore meesha kama marno yani diinti yani in diintii NCCIST yani awalan meesha ugu horeyso oo daawadeena ay ku jirto dhan inay diinta ilaahayood ka cabsatid xumaantiyood ka tagtid maxaa ahaa xalaashiyood cuntid waxaasoo dhan muxuu ahaa salaadahaada shantooda aa ogtid sunnaha daa ku dari kartid quraankiyo aa baratid kitaabadii oo aa raacatid
محو هاي صونكي قفك أصلا أنت أصلا سمينا يمرك خاركة كو إيمان كرتا امتحان إن wax inay ka maqan yihiin maanta dhan uu dareemayo taasna marka waxa lagu soo celin karaa hamigaas iyo waxyaabahaas oo hadhow farxad ka qaadayo kalento ziyaadada in aad nicmooyinka inta aad haysatid aad aragtid xilligii aad inta aad aragtid aad ku qanacdid oo fiirisid oo tiraahid alxamdulillah rabbil alamin shukr macnaa waxa aan dhahay waay 80 markaan soo gudbiyo konton hadii gurigaada ka yeeshid maxaa ka maqan 40 hadii yeeshid maxaa ka maqan waxyaabo aad ku feejigneen oo isdhihi jirin waxaan aan may farxad ku gelinayn yaad arki doontaa oo sameyn jirtaadan aan farxad ku gelinaynin midii aan u dhahay ahayd maalintii dhaweyd qof walba yani liis ha samaysto oo ku qoraayo maxaad ka mahad celisaa muhiim waa kaas meel walbana qof walbana waa la wadaa waxaan dhahaa wixii aad ka mahad celisid galab kasta intii aad sii seexanaysid qor galab walba waa la qoraa wax un yani cid ku dhoola cadaysi xataa haddii aad aragtid daris aad si wanaagsan isku salaanteenood xali maxaa ku bardeen maxaa ku hirgasheen ma soo hoyateen aa isdhahdid waa mahad alle waa example ugu fududan ka soo qaatay ahayd marka muxuu ahaay tobankaana haddana aan soo gudbinaa tirsaadi marka toban kastoo aan soo geliyo inta aad ka haysatid isku darso si hadhow percentage-ka aad haysatid aad u ogaatid oo muxuu ahaay qanaaco buuxda aad u heshid qanaaco la-aanta yaa farxadda qaado adoo weliba wax kasta qabanaysid marka tii diinta ahayd mar walbo diintii waa ku taaganaho salliga nabiga sala allahu calayhi wasalam muxuu ahaay adkaaru sabaax من القرآن كي وآخر سنة لكن وحرمنا نعموين كأن هاي سنة إنا تبغون نقولنا أنا هو حسابي كرين لكن أنت قفل بقى إسكهالي كرودي كرور وحن هيستجيب كم متهاد مدكوبة وما عندنا وقر والد كذا بار موته بار أنقو والد كذا شال محاكو بالعمل يعني دينت الله بارك هاي وهو جانسنك اللي إسكحرك أذكار الصباح ده شال أنت سقبل لعبنا ما أنت طبعا كان وحان قبل لعبنا هنا والد كذا بار مؤتبر الوالدين إلهي يا يري يعني بدوني والوالدين لبدا هذا والد لبدا هذا والد لبدا هذا والد دردار آد مهم واي نبي ونادر دار من إلهي ونادر دار محو هاي إن هو هذا بار مؤته سدح دي مرة ورسولك كسر عليه أمك ويري مكون قفيل أنت مركا ومدكود حيلسا والد كذا بعرف إنه وحكى لنا إن شاء الله أنت قد قلنا أنا اللوبان ديدنها ولا شيء حمد حيس هذا أو ما هدعلنا جزاك الله خير سيدا يعني أنا وصل خلاصيسي أو أوصل مهم واي وأنا أجري حسنات إلهي كاسيو لما أنا أساس سكوجو محو هاي فائدينه هذه مهمة تا حيل أنا مركي أن صا قد بينايو شرحنا كترة إكسامبلوين كترة خلاصة ولا شيء ناس وسميسي هذه مهمة تا وأنا هذا أساس وصل خلاصي إن يرقبون ونقنا وحماش كبحاي example كأن رب إن عندك أن كسو جديو on تصو on يراهو ساس داس ميسيد سامو سان داس ميسيد سامو مركا هذا ما تنتحمتي إن شاء الله إن إنتكود مركا حواي والد كبار لو نقض ونقش هذا برنامج ما بير الوالدين هذا مهم وتحب ومت نرش على يعني أو كمبلت نعكست فرحة أد وين أد كهليسد إن وحكاب حي ولا والمروج والأروج waxaas dhan ilaahay kuma tusaayo sababtoo ah ducada labada waalid aad maxaa ahaayeen muhiim ay u yihiin ku dadaal marka haday nool yihiin si fiican ugu dadaal hadii labadooda mid uu nool yahay aad ugu dadaal yani waqtigaaga badankiisa inaad la qaadatid hadii uu kula degan yahay hadii uu kula deganeen yani labada waalid hadii mid uu dhintay mid kale si fiican ugu dadaal haday nool yihiin labadooda ku dadaal haday dhinteen labadoodana intii ehel iyo qaraabo iyo cid ay jeclaayeen ay aad u jeclaayeen نقف درس لا هو دتكاس يعني جعل درس مركان قدام معناها أجور ماشي دجناين أجور دتكاس كمود قف كور قبو هدوق عن دامه حلوة بحريرنا يو كور قبو نقو يعني أو مرور بوالد كيس كسر حسوسته دتكاس كلامته أو هيلده قرابة له هو أصحابتي والد كمركز إل هاين هذا مهم متى سمي مركزات دي محو هاي صدق جاري أتوقع كرتيدو سمين كرتيدنا دوح صدق يسيدو صدق جاري أتوسمي سيدنا مهم ولكن صدقة جاري نفتك يا دوحة مهمة إن أديك جاب كذا يديد كذا إتهو أديك أوصل شقيس إيه ولا سوق عرامة أما ولا عليه أنت حقلا أورنا ده حكينا وح صدقة جارية والد كيلو سمينا مد أود مد ربكو مد ربكو إيه وحكل سو جفت دتك أنت أروح كسو أورسيت مركا أنا وحن سمي عيلان وقاضي مساجد أورسي كاربيديا أوقات معه waxa waalidku istaqeenayso dheesid saddex jaari u yihiin waa in xalaal ku ahaadaan
waa inaad dhididkaada ay ahaadaan waa ina muxuu ahay wax hadal hadhow ka daba imaanaynin ay noqota marka xoolo duceysan oo xalaal ahaa muxuu ahay keenayo inay sadaqadan ay noqoto meesha u socotay inay gaarto marka midda labaad taas waxay ahayd bir waalideenka midda labaad inaad noqotid yacni qof mahad celiya maalin walba mahad celi galab walba hal hadaa laba helaynin hal hadaa saddex helaynin hal aa ka mahad celi sidood tiraahid alxamdulilahi rabbil caalamiin shukr ilmuhu markay nabad ku soo aruuraan guriga hal mar ay wada yimaadeen albaabka aad soo xirtid alxamdulilahi rabbil caalamiin shukr nabadan ku soo wada aruurnay dadaa nabadgelyo la-aan ay haysaa marka nicmooyinka inta kaa maqan keliya lama fiiriyo inta aa haysatid markaa ku mashquushid boqolaalaa haysataa ku farxad gelinaayo subxaan allah yacni ilmahaada saaka aa nabad ku tirtay oo nabad kugu soo aruuray alxamdulilah adduunka mashaakilo kalaa ka jiro ilma aan helayninaa jira nabadgelyadaas ilma markay baxaan nabad aan kasoo noqonayninoo walwali cabsi lagula noolyaha jir adi marka intaas walwal la-aanta aad tahay wax kaloo kasii badan haraadinina intaas ka mahad celi intaas alla ku shukri marka waxa waaye inaad noqotid qof mahad celiya haddii mahad celintaada ay badato subxaan allah nicmooyin fara badan aad arkaysaa oo aa haysatid taasaan ku gelinaysaa dhow farxad ziyaado ah midda saddexaad farxadda kordhin karo dhalin karo ku siin karo waxa waaye ha iska beerdaraynin waqtiga waa muhiim cimrigaada waaye taa waxay keentaa waqtiga hadduu yacni sudfo kugu dhaafo ama si sahlan kugu dhaafo sanado ku dhaafaan bilooyin ku dhaafaan xuf waxay keentaa in muxuu ahaay hadhow go-asho aa bilaawdid oo ka go-atid waqtiyaha i dhaafay waxaase bilowgu qabsaday ani as isku galaas ahaan jirnay dugsi hoose dhex waa isla dhiganay dugsi sare waa isla dhigan jirnay isku xaafadaan ahayn shalay loo madax kor usoo qaad waa ka maanta inta mare farxadda dhan way kaa tagaysaa oo wixii aa haysato dhan ma arkaysid marka waqtigaada intuu munaasibka iyo kula taagan yahay adoon cid kale isku mashquulinin ka faa'iidayso hay ku keenin yacni waqtigii la rabay inaad ka faa'iidaysatid haddii go-ashada aa gocanaysid iyo muxuu ahaay shalayga aa shalaynaysid aa kula noolaatid ka waran midkaan kaloo soo socdo inuu haddana orod kugu dhaafo xuf kugu dhaafo 2 bilaa shalaynaysaa ood shalay dhex fadhisaa 6 bilood wuxuu ku gaarsiinaa xanuun aad la nooshahay oo hadhow wax aad qabsan weysid xataa farxad iska dhaaf yacni xanuunna ay kula soo darsaan marka waxaad samaynaysaa minidkii kusoo maro secondkii kusoo maro muxuu ahaay ka faa'iidaysa halkaada maalin 86,400 second aa ku jirto halkii second muxuu kugu dhaafay isweydii xisaabtankaas markaa bilaadid farxadaada waxay noqonaysaa qof naftiisa la xisaabtamaayo cala alaqal waxaa ku guulaysatay waqtigaada oo dayacmi jiray si fudud kugu dhaafi jiray aad ka faa'iidaysatay farxadda waa lagu helaa iyadana aaday muhiim u tahay midda afaraad ha caburinin dareenkaada hore ma maqlino hesheey qari oo hore saas ma maqli jirino ani waxaan ku dhahaa maanta ha caburinin dareenkaada cid alle ciday rabta ha noqoto ha ku caburinin dareenkaada muuji inta in la eg marka dareenka aa qarinaysid waa wax hadhow kaa dhex buuxaayo waa wax maskaxdaada ka buuxo waa wax yani aad soo gocanaysid waa wax ku mashquulinaayo waa wax hurdada kuu diidaayo waa wax wixii aad qaban laheed oo dhankaa hor istaagayo ku mashquulinaayo marka weligaa ha ignore garaynin problem ku haysto adoo farxad raadinaysid ha ignore garaynin problemkan ku haayo haddii aad ignore garaysid ood indhaha iska tirtood is iloosisid problemkan farxadna ma helaysid intaad farxadda ku raadinaysid hanti inay kaaga baaba'daa laga yaabaa waqti inuu kaaga baaba'aa laga yaabaa inaad dunuub ku dhacdidaa laga yaabaa oo yacni negative iyo dad la dhibaateynayo qosol aad ku qosashid iyo dad iscaynaayo ood markhaati u noqotid adoo rabtid problemkan ku haysta inaad ku ignore garaysid may kooga hor weligaa tilaabada koowaad aa qaadaysid waxay tahay aqbal problemkaas ku haysto waxaad marka kusoo baxaya xalkii isa uga gudbi laheedo problemkaas u daryeeli laheed marka problemkaas daryeeshid macnaa already qof wax qabtay oo selfie tusaa la yiraahdo qof wax selfiteeyey oo wax xaliyey problem haystay xaliyey ka gudbay aad noqonaysaa taasaa xogsiinaysaa inaad faraxdid ma ahanay adoo problemkan indhaha iska tiraysid oo qarinaysid oo daboolaysid oo caburinaysid farxad si gaar ahaaneed inaad u raadisid may farxadda waxay gadaal ka jirtaa dareenkaas aad burqisid yacni tukoxda tutunteed dareenka la caburiyo farxaduu qaadaa farxadda burqi meesha aad ku burqin laheyd haddii yani dadka ku dhibaayo kaleento ay dad kula dhasha yihiin dad daris haday yihiin wax kaleento problem meelo kale kaa soo gaaray waxaa ku roon inaad isdhaaftisid oo bixisid haddii laakiin aad ignore garaynaysid ood
waxaan ma i haastaan anaa ka waxaysan anaa ka gudbaayo way kula degaysaa aadan oo farxadii kaa qaadanaysaa dadka way isa saameeyaan aadana yani meesha shaqada lagaa saameyn karaa dadaad garanaynin ku saameyn karo waxaa loo baahan yahay marka inaad adig qof diyaarsan aad tahay oo soo jeedo oo dareenkiisa aan loo gudbi karin wuxuu indhaha ka arka maahan yani dareenkiisa iyo qalbigiisa aan loo gudbi karin inaa noqotidood meelahaas oo dhan ay difaaclayaashaada ay yani diyaar yihiin staafkaada uu diyaar yahay meeshaas oo qofkii meeshiisa aad jaq ku siin kartid oo ku celin kartid taasna waxa waaye si gaar ahaaneed aa loo bartaa marka ha caburinin dareenkaada oo dareenka muuji 5 haddii marka qarkeed ooyin ku hayso kale dad qarinaya jir ooyinta ama ceeb baa lama ooyin markay ku hayso ooy marka faraxsanta qosol ku haay qosol markii maxaa ahay murugo ku hayso murug xanaaqad ku haay xanaaqada sheeg war waa ku xanaaqsana marka qarkeed waxa dhacda qof aad u xanaaqsanta intuu guriga ku yimaado yaad sheeg soo karnay qofkan waa ku xanaaqsana qofkan aniga isma galno qofkan xitaa ma rabi lahayn inuu iimaado sheexna usoo karinaysaa toos ugu sheeg qofka waa ku xanaaqsanay waxaasaan ku xanaaqsanay dareenka aad muujinaysid ka mid tahay caafimaad ku siinaysaa marka adiga mid shanaad waxaad baranaysaa ereyga maya haddii aad maya aqoonin farxadda waa laga qaadanaa farxadda practically u baahan tahay farxadda ilaashay u baahan tahay farxadda waraabisay u baahan tahay haddii aadan aqoonin ereyga maya hadhow waxaa noqonaysaa qof yacni markasta dad badan ay u sahlaneen oy ku adag tahay ereyga maya qofka ku jeceshahay waxa ku raaligareyn ridan naasi qaayatan laa yudriku raaligalaantu aadanaha waa ujeedo iyo wax aan la gaarin ma raaligareyn kartid marka dad baro ereyga may waxaan may sababta u tirin u explainay horu raac meesha ay ku egta hadaadan aqoonin ereygaas wax badan ka halaabayo midda lixaad cidna noloshaada hala barbar dhigin nooc kasta ay noqoto noloshaada cidna hala barbar dhigin aqoon ha noqoto hanti ha noqoto guri iyo nin iyo maxaa ahaayeen hebel naag fiican uu qabaa ama heblaaya muxuu ahaa nin fiican ay qabtaa ama meesha ka shaqeeya anaga weliga cidnaha isla barbar dhigin subxaanallah intaad haysatid nicmo kugu filan intaad haysatid marka cidna noloshaada hala barbar dhigin nooc kasta ay noqoto material ha noqoto muxuu ahaa ha noqdaa diiniyan ha noqoto yani qofkaas waa iga diin badan yahay waa iga aqoon badan yahay waxay rabto ha noqoto weligaa noloshaada tilaabada meesha aad taagantahay iyo maalinta ay kuu tahay yaa in maalintii lagugu talagalay ee la rabay inaad ku qanacdid midda muxuu ahaay 7 keed lahow maxaan ka wadaa yani haddii aad tahay dadka qaarkood yani oo kunko haddii ay haystaan hadday kow haystaan iskugu mid tahay farxad ma helaysid maxaa yeele jeebka maran farxad ma keeno oo maanta dhan inaad ka sacaada oo faaruq yahay oo boorsadaada faaruqta holan aa yidhaa holan waa haa hur qofkaas waa hura laakiin kala gooso hal euro hadaa haysatid maanta inaad kala goorsan karto nus iyo nus kuna daayasatid aad 50 u isticmaali kartid ood og tahay 10 maalmood haddii aad ay ku hortaalo inaad 100kaas yani ama 10kaas ay haysatid ay kugu filnaan karo haddii kow ay haysatidna ay kugu filnaan karo ay ahayn maanta haddii 100 la isii biri haddii 1000 la isii iyo biri dabadii 10 la isiiyaba waa ka soo jeeda oo faran marina dad badan oo noocaas xataa si life aan u aqaana oo yani maanta 7 biri 5 biri aan gaarsii karin wixii soo galaba farxad la'aan la noolaada marka dadkaas oo maxaa yeelay waxa gubay oo hur ku keenayo jeeb la'aantaas oo xilligii ay howlahooda kala idanahooda waxooda qabsan lahayn kaasa iga wixii oo taasan dhibaato weyn waa subxaanallah ilaahay ka mangalayna marka keed lahaa waa isku ka noqonin kun iyo koob labadaba wixii lagu sii inay mid ku yihiin 8 qaado yani mas'uuliyadda noloshaada responsibility-ga noloshaada mas'uuliyadeeda adaa la rabaa inaad gacanta ku dhigtid oo cidna cid kale aad ka sugin haddii dad le aad sugaysid ama dad le aad noosha midda kale waxaa aad muhiim u ah barnaamijkan ma quseeyo barnaamijka kale ka keeni doona oo nala dabaalan ku duubi doona yani ilmaha markay dhalinyaro yihiin oo yaryar yihiin in la baro siday u shaqaysan lahaayeen siday hanti ayaga ilayhin ay ku samaysan lahaayeen waxaa arkaysaa 30 jir waxna haysanin 25 jir waxna haysanin marka ilmaha haday 20 jir kusoo gaaraan in hooyadoodii aaboodba ay dawarsanaayiin abtiyo waxaas noo soo dhiib habarya waxaasna sii adeeraan soo biilay eedaan siinayso cid kaleba waalidkooda inuu ku tiirsan yahay ilmaha marka indhaha ku kala qaadaan haddana ay 20 jir ku gaaraan hadhow ma noqonayn dad dhididkooda raadsanayo marka weligaa waxaa samaysaa mas'uuliyadda noloshaada responsibility-ga noloshaada qaado si ciyaalkaada ay kaaga sii bartaan oo muxuu ahaay dad ayagana hadhow mas'uuliyadooda la wareego oo role model aad u noqotid
marka gacantan midii koraysa mar walba khayrka uu ku jiraa adin mar kasta hoorsada aan noqonin hadana dayra la sii wado oo yaa ku soo ridaa hadana ku soo ridaa hadana ku soo ridaa hadana ku soo ridaa ma fiicno midda maxuu ahaay sagaalaad midaas yani oo mas'uuliyad la'aanta waa mid xirfad ma aha farxadda ka qaadayso laakiin marka mas'uuliyadda noloshaada ala wareegtid oo adi aad leedahay wixii ku soo galay wixii ka baxo iyo wixii qabanaysid iyo waxa sameynaysid kulli ay dhakadaada adi ay ka soo goodo oo la saarneen subhanallah farxad aad ziyaado aad helaysaa midda sagaalaad hobby yeelo harrastu saar luqad finishka hobby yeelo hobbigaas wuxuu noqon karaa inaad akhriska samaysatid يعني وحيابا كلانتو حليل أتشقينيسيد حليل أدوح برينيسيد وحلي كبحسن وواحد هبيجرينيسيد إن أتسميسيد بوقته ولا أدعشه إن أخرسيد وكلانتو وإكسامبل محو هاي وفي عن هذول نكوكورينايو يعني قرون قرنية لقصة وتجي وحلا قبل جرو لسمين جرت وجانيسا وحصوص لسادها شو ذا ماش أتكسي برنيسا وحلا يقولوا لي واقعي وضعي وحنا نقول ساقفان كل مرين نعيم الهالير معناها ماشي أقول لك كلمة جوجي سيد عالم ككلاد وح كبرنيسا وحنا نقول ساقف كيت كيس أو مسكحات وبلارين هو وح بدن تعاصف الحدث وجلنيسا مركو هدو محليا وحياة ذات كلام أي جرني إنه كلمة نسوي معتين أو الورصة هذا أتريها أساس واسان بوغان كأخري بو كابل مجي إساس ويا يان كأخري وفي عينها بو كسرات سد ما كأتري قف بالشدة وحكسو كرديات هاي ذاتكي وحوش هاي فرحة داستاسا وجلنيسا مركو أو ذاتكي كابرتين هدو يكوسو feedback سوسيال دحان بوغي مالتي أنا ما توصل قدرني وأقرصنه آل نوكري واو لما هلك روح في عنوا مركا سجالة إهتاس من الطبنات وأقصد جوين دون مقال كان حنقنا كقنع شخصية دعاتح كقنع سنو شخصية دعات يعني personality هذا جارك سيف عن وقنع هاسكو رادين هاسكدين قف كلامت إناد نقطة أنا قلنا نعيمة لأهانا يعني هذا اسكت ينان قف رول مودر ينقضوا أون كده أون إراهو ستاسو كلامت إنا ودقمو أخلاق ديس آداب ديس أقون ديس إنا يشان ربع أون هيكسنا ويبوحة علماء الصومالية كلامت أدو هيكسدا شيخ مصطفى محمد شيخ عبد الرحمن يعني إنا دت ساسو كلامت خاصة كلامت وحقوق قانون دينيا إماديا كبسا حبقا كبرشة وقدح مقدان وان ربع أو كده ينويا لكن أيجي عن ربع إنا نقضه أو قفكي personality كاس شخصي كاس إسكتك دقيقة سيدو هاي عن ربع إنا إسكتك دقيقة ما نقول كده أنا نعيمة يا رول مودرن أن كده يدو إيه نقول كرا لكن ما نقول كرا أيج أنا دتك إسا الرول مودرن كوه إسا بتسعده أنا إسكما كيديك كرانة وحنو أحكي وضدي أيسو هيك سنة ساس وامك وحاجة ما introverti إناته وتكون أحسن introverti وكسر شخصية ده وشخصية دربت إن كل جهة وقت إسجلسو جذ أهان إسكوجو مشغول سن برشدي وحصلنا وبحكي لها لكن عن إنرجي كهلين ووقت كل جزء ويا إنرجي هلا وحبرشة إيو هرسعد كيس إيو هرمر كيس كلمة ده كترت هذا إسكو قص بيسد كور هبل صاحب كي أم هبل كرال مرك إيه مبلشاوي وإن عن كده بناخد عربة ماي قفك هيك سنة يسيدو رال مرك كوه أصلا إنتروفيرتي أبغى إكستروفيرتي يا هيك سنكرتد لكن شخصية دينا كل دول بورسناليتي هذا نبتة يا تكون بس عنك تنقفك لا إسبدلين أو هديهن مقنع أحسن إنها عن كلي هذا محيل قفك عن كده يدو وقف بالشاوي ما نقول كرتد وكل دونتين مركز تعرفنا هذا مهم متهم إن محوها قفل وكفيجك نادو خير عفمان إن سلامة عندي كنت القلم وقال كان طبعا كاس إنا كسر جوجو أنت عسير نبت قليو وهل كل جاني إياه كنولو نولش أدوني سيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.